waxaan jeclahay inaan ku furo aayadaha quraanka kariimka oo inoo akhriyo doono محمد نور أحمد وكما قاعد القرية تفضل. الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. مر
labaad anigoo runtii ka wakiila macaamiisha dahabshiil sharaf ay caawa noo tahay inuu nala joogo caawa maxamed siciid ducaale oo ah mulkiilaha shirkadda dahabshiil isla markaana ah gudoomiyaha anigoon kelmadan isla markaana sidii berigii hore kacaanka loo adeegsan jiray haddana u adeegsanaynin oo ay tahay si ka duwan sharaf ayay runtii tahay in caawa ay xafladan ay soo qaban qaabisay bahda dahabshiil ee dalka Norway Ahmed Awad Abdi Yusuf Hashi Hassan Muuse iyo inta kale aan magacyada soo koobi karin laamaha kala duwan iyagoo iska kaashaday runtii sharaf ayay tahay anigana ay tahay macaamiishii ugu horeysay dahabshiil iyo qoliyahan kale runtii waa casho sharaf oo idinku tala galay maxamed iyo maxamed baashe iyo inantiisa oo la socota ina maxamed casho sharaftana waa inaydun caawa lagu arko macaamiisha sharaf ayay noo tahay maxamedna si gaar ah ayaan ugu soo dhaweynaa runtii Norway kastay xilli qabow tahay haddana had iyo jeer waxaa la yidhaha qabowgu ma aha ka dibadda ka dhacaya waa ka dadka dhexdiisa waa dadka dhexdiisu qabowdo marka taas waa laga fiican yahay marka in la wada sheekaysto la wada noolaado la farxo ay nolosha ku jirtaa runtii dadkan maanta hortaada fadhiya mudane maxamed waxa weeye waa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway iyada oo taarinkii siyaasiga la adeegsanaynin oo ka socda ay markaa ina kulmisay luqad diin dhaqan dhamaanteena waxa weeye waxa naga dhaxeeya maanta waxa weeye inaan ku kulanay Norway horena aynaan soo aqoon kuma dheeraanay runtii taariikhda waayo shirkaddu waxay leedahay taariikh dheer marka maantana waa fursad runtii dahabiya oo qiimo badan ay noo tahay inaad nala joogto barasho ayaa dhici doonta waynu isbaran doonaa waynu cashay doonaa haddii ilaahay idmo marka waxaan idin leeyahay marka ugu horeysa waxaa jooga masaajidka Tawfiiq oo isaguna si gaar ah ay u joogaan imaamka masaajidka iyo gudoomiyaha masaajidka waxaa jooga odayadii kala duwanaa ee Soomaaliyeed ee deegaanada ka tirsanaa waxayna la joogta Salaadiin waxayna la joogta Cuqaal waxayna joogta dhalinyaro waxayna la joogta madax waxayna la joogta saxaafadii marka bulshada runtii waxaan ahay inta caawa halkan la joogta waa intii matali karaysay muraayada u noqonaysay Norwayna taariikh gaar ah ay leedahay marka runtii waxaan ugu talagalay programka marka ugu horeysa in aynu marka isbarano haddii ilaahay marka ugu dambaysa waxay noo soo khatimi doonaa maxamed oo marka kelimad inoo soo jeedin doona haddii ilaahay waxa taas ugu dambeynaysa waxaan hadhow ku bilaabi doonaa Ahmed Awad oo kelimad ku saabsan munaasabada inoo soo jeedin doona madax dhaqameedyo odayo kala duwan iyo dad culimada ayaan qoray iyaguna kelimad soo jeedin doona marka runtii in badan qolada madbaxa ayaa ina sugaysay cashada caawa aan halkan idinku tala galay waa kalluun runtii waxaan iska ilaalinay cashooyinka in wax way salaan gacan lama soo wada gaari karna haddii ilaahay idmo marka asaas ay aniga ila tahay marka tafadalo marka imka cashadii ayaa inoo bilaabmaysa haddii ilaahay idmo waa tafadalo insha Allah tahay dhinaca dhaqanka hadday tahay saxaafadda hadday tahay waxyaalaha kala duwan marka runtii Cabdullaahi waxaan jeclahay inaan mikrofoonka halkiisa ugu geeyo marka qolada saxaafadda halkaas kaga duuban kartaa بسم الله الرحمن الرحيم آدي أدبل وقوم هاد يا بعض الذهبشيل يا حفلة القالق عينو قبط بريها قطعا كرمينا عينو هديك كيس اللي كلا صوح كلهم كانوا في البورة دوم بالهاي marka idinku bala kalluunka qolooyin badan oo daan kana sabada lahayn baaba la yaabtay noocan kalluunka loo sinay waana ku mahadsan oo cunto aad u dhadhamaysa weeyaan shirkadda dahabshiil waa shirkad baanta hana qaaday ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay noqoto mid caalamka oo dhan gaadha maxamed siciid waa markii ugu horeysay salaado waxaan joogay markii la furay mashruuca e-cash dahabshiil ee laga furay hotel ambassador laakiin dadkoon aqooni lahayn anigoo dadkiisina shirkadda dad badan aan bay garanayaan shirkadda ka shaqeyn jiray ayay ahayd in halkaa lagu qoro xusuus qor waqti jirtay shirkaddu e-cashka maanta Hargeysa ka hirgalay de waqti ay xawaaladu ahayd sida boosaha maanta Norway waxaan tagaasida Oslo 1921 markay bilaabeen dagaal dameer buu
intaasi waxa weeyaan inta shirkadu maanta aad bay u hirgashay marka la yiraahdo e-cash maanta waxa weeyaan dadkeena Yurub jooga marka meesha tagno ama aad tagtaan inaad isku aamintaan wuxuu yaala supermarket waaweyn ku yaala kaga bilow sacaadadiin meel kasta hoteelada waaweyn waayo cash ka reeno qaadanayno inna ku jabto qaadana wax lumaaya oo inaga baxay e-cash meel kasta uu gaaro waxa inta dheer wax qabadka maxamed masaajidada Hargeysa marka laga inta ugu badan wax badan bay ka qabteen shirkadu waxaan ka maqlaa hadii Saleed Puntland meelaha waxa la yiraahdaa lagu kaydiyo dhiiga oo saacado daan wada naqaanaaba islaan dhiig uga qaaday bir dhawada ii sheegay sheekh saacad waa taqaanay kutumada jooga oo dhiig uga qaaday hadii Saleed Muqdisho de hawlo badan bay shirkadu qabataa oo khayraad ilaahay waxaan uga bareenaa oo inteena soo isku timid kullu dad ducayeel weyn ugu jiraay in ilaahay jazaa'igeeda aakhirasi halkan maanta waxaynu isku nimid dad badan oo kala jaajaada waxay marka caankan oo kale isku dhimaadmo in caalamka Soomaaliyeed xagga asar lagu dhajiyo kiishantii kan bariga la dagaalan kuweeni kale lagu dhajiyo waxay laaleen isku gaaf gareeyay marka caalamka Soomaaliyeed la taago la kaasana Kenya oo kii hadii misal kii Soomaaliland kii caankan waa kullu weyn ka wada koobanahay hawl aad u qiimo badan way sameeyeen shirkadda Dahabshiil markay dadkan kala wada qabaa'ilka keeneen waayo waxaad moodaa qolada halka la fadhiyo waxa isla kulmiyo baa imanay waa rudubna way fadhiyaan maanta waxa halka fadhiya imaamkii magaalada Sheekh Ali waxa fadhiya gudoomiyihii masaajidka Dr. Ali waxa fadhiya gudoomiyihii masjidka Maxamed أنا وإيران بان ما تورنا يا وحويان محمد سعيد هذا هو رسولنا مساجد دار بسرعة مساجد كينا العقد هذا بضمان ورنا بحنا ملاوي اللي لها 10 مليون مساجد كينا وصعدة الطبق فيه خاصة مكان صعدة وشبكي ما صعد شركة دهان إيوه هتبغى شن طبق ومال سومال دور كل منيسة ومال إسلام دور كل منيسة ومال مدر دور كل منيسة سيدي لاتن كان مليون إسكندنافيان كان نرويج ميلول بقول لك نورية ما أنتنا ده أديك أفرديا أو شركة دهبشيل وحكا عصر يعني وعبد الله هان أنا والله تشضي والله ده وده شيخ علي نرى الله يجاه هذا ولا إيري يا دكتور علي دكتور علي ودي يبانك مساجد كا وقال عشان كمان سوق قادر العكس قاعد يبقى عنه لكن إحنا سرقات قاعديش إن شاء الله واحد محمد سعيد لا حولها وبركيه مالكها وبركيه وبدكها وبركيه إن كل العقد ضم بين قرون مساجد كا وأميرنا كل منيسة وأمير مستقبل كمدينا كل منيسة دارو قلنا هالقا بعنا ما تبدي ودك بيد لما تجنيه هرجيسة أنت بدنا تجنا هاي waxaan jecelahay in codsiga Maxamed Saciid soo qoraan la yidhi taas la kacay codsiga intaas uu noqonaya arrinta masaajidka inuu inoo eego wixii aynu hayno waxa inaga maqan waayo masaajidku reer male qolo male qabiil male qof male reer Soomaaliland gooni uma laha reer Puntland gooni uma laha reer hadiimkiisa leeyay Kismaayo gooni uma laha masaajidku ma doodha ka dhaxeeya dadkoo dhan ku wada tukadaan ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu bogeeno barcad isku mariyo إلهي بقولنا برعات كان واحد كلام معه وين نسامحنا إنه وده هذا الله إنه وده كفتنا أنت كفت كلنا ما يصير لكن هذا لو كلا على النقطة الناس يقولوا هذا كابسنا قارنا رستان الفراغ رم وجيه وين واضح عادي بقى نسمع نسمع هذا المنطقة الصومالية قارحان تذكر مقدشو دبتو هيستنا إلهي دبتها كدرقان إلهي دبتها كدرقان إلهي بقود برعاد اسكمر يقول دبعتنا وحوم على جوا على جويني يا ونا أنتي باني قاعدين لقى جويني إن شاء الله بيردوا ويكلم ما نطوط اللي يقول سلمنا إن شاء الله كلام ما نطوط أنا تاسع ورنا يا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يوم سيحي runtii waxaan jeclahay hadalkan qoray markaas waxaan doonayaa inaan runtii Axmed marka hore ku soo dhaweeyo laakiin hadda waxaan doonayaa maaragtay dadka is qoray iyo dadaan jeclayna kelmadahan ka soo jeediyaanba kelmadan taarifka siyaasiga imka Puntland Somaliland iyo South Central baa loo qaybiyay caawamaha Soomaaliya marka la caawinayo marka iyagana inaan dadka qaadin saddexdii juqraafiga way joogaan imka iyaguna halkan aniguna qaybta ugu weyn baan ka qaatay inaan isu keeno runtii waxaan kelmadda siinayaa أحمد عود إسماعيل ويسوي كهر دون مقعة دهبشيل نروي تفضل أحمد
horta marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa baashe oo ah aqoon-yahan da'yar oo halkan wax ku bartay jaamacadda kaga baxay aad ogtihiin oo intayna halkan joogtaa aynu wada qirayno inuu yahay waxqabad marka la yidhaahdo aan cid ku gaari kartaa jirin soomaalida oo aan kala soocin soomaalidana xafladan caawa isagaa soo qabanqaabiyey isagaan u xil saarnay isagaana soo qabanqaabiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan jecelahay inaan aad iyo aad idinkaga mahadnaqo waynu ognahay maanta maalin shaqay ahayd waxaa laga yaabaa badankiinu idinkoo shaqooyinkii jooga inaydan guryihiini tegine aad halkan toos u timaadeen taas waanu qiimayn karnaa sida aad noo qiimayseen wax sahlan maaha oo aad nooga aqbasheen iyadoo ay maalin shaqo tahay oo ay baraf tahay qabow oo waqtigu ciriiri inagu yahay inaad naga aqbashaan casuumadii aanu idiin fidinay haddaanu nahay dahabshiil Norway ee aad la kulantaan guddoomiyaha iyo waftiga la socda aad iyo aad baanu idinkaga mahadnaqaynaa mana aanu ilaawi doono waxayna noo sii kordhinaysaa jacaylkii aanu idiin haynay way waad ogtihiin inaan dahabshiil inaad idinku leedihiin waa ogtihiin dahabshiil dadka ma laha mar walba waan idhaahdaa dahabshiil dadkaa leh markhaatigeedana waa la hayaa oo isweydiin mayno taa aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa oo jacaylkaanu idiin haynay baad noo sii kordhiseen runtaa fiicane waxaana u sheegayaa guddoomiyaha iyo waftiga la socda halka kan inta fadhida inay ka wada timid dhammaan gobolladii Soomaaliya loo odhan jiray ama meelaha ay Soomaalidu degto NFD ha ahaato ama kilinka shanaad meesha loo bixiyo ha ahaato dadka Kenya degay ha ahaato meelihii intii Soomaalidu degi jirto oo cidima maqnaa taasna waxaad arki kartaa inaanu ka duwanahay ama arki kartaa boqoladiina waftigahay inaanu ka duwanahay Soomaalida kala Norway ka duwan tahay Soomaalida kala firidhay kala yaacday aanu wali is haysano waxaan u mahadnaqayaa anu masaajid ma idhaahdee waxaan idhaahdaa markiska tawfiiq waan idhaahdaa waayo masaajidku waa meel lagu tukado uun markiska waa meesha diinteeni islaamka aynu ku haysano dumarkaa wax ku barta dadka waaweyn baa wax ku barta intaas oo boqol oo caruura baa wax ku barta muxaadarooyinkaynu ku qabsanaa waa meesha aynu u marno xiriirkii diinta islaamka aynu haysano meeshaynu u marno weeyaan maaha markii u horeysay xafladahan oo kale ay nagala soo qayb galeen xaflad kastoo aanu qabanno ama xitaa markaanu wanaga koobabka qabano cayaaraha markaanu bixinayno waan u yeedhnaa xitaa way yimaadaan iyaga si gaar ah baan ugu mahadnaqayaa oon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad u mahadsan Axmed runtii taaralaada yiri gaar ahaan turbashaash baan si gaar ah ugu mahadnaqay isaguna qaybtan bilicda mas'uulka ahaa markaa runtii waxaan jeclahay hadalka waxoogaa waynu yara qaybsanaynaa qaybta formality-ga ama nuxurka hadalka iyo ujeedada waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyey marka haddii la haydmo maxamed baashe oo isagoo ah guddoomiyaha kobcinta iyo horumarinta aagga Yurub ee shirkadda dahabshiil oo bal ah dee markaan sidaan u eego dhinaceena Yurub qofkaynaga mas'uulka hadday tahay marketingkeena horumarkeena adeegyadeena agabyadeenna waxaynu u baahannahay markaa wuxuuna siin doonaa hadal kooban oo ku saabsan bal dee horumarka aynu gaarnay waxa weeye ilmuhu marka hore wuu dhashaa dabeedna markuu dhasho wuu gurguurtaa dabeedna wuu kacaa wuu istaagaa wuu cararaa marka kolley xawaalada dahabshiil company-na taasoo kale soo maray waxaan kelmadda siinayaa maxamed baashe oo runtii bal waxoogaa inoo saafi doona waxa ay tahay dhinacan kobcinta dhinaca Yurub falyatafadal maxamed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتا يا قيمها لهير نوروي. أنت عاوه هلكن شوكتين الرجيسيسة. تبين سويت شيبتي. يعني هلكن وقتك بقايب سنة إنه. يو أنت قاعد كصحافة قاعد الدورة كل بقى إنه سكة لوركن يو قاعد يدورو. يقوليها شوكتا وملا كرو إنه قدروا سن شوكتين تبع. وان سلام يا سورة دويري يا ورم هنقيا. شركة dahabshiil
iyo haddii ay bahaydankada leeyahay waxay qabatay adeegyadeeda waynu wada ognahay. caawa waxaan jeclaa anigu inaan dhowr qodob ka taabto howlaha samafaleed ee ay shirkaddu qabato amaba ay fulisay gobollada iyo degmooyinka dalka meelaha Soomaalidu degto meel kasta oo qof af Soomaali ku hadlo uu joogo oo markaa shirkadda dahabshiil ay ka hawl gasho. sida aynu la soconno Soomaalida waxaa ku dhacay burbur dhaqan dhaqaale oo ballaaran oo ka durugsan haykalkii dawladnimo iyo taariikhi iyo xafiisyadii laakiin saameyn toos ah ku yeeshay iyo tudadbanba arrimihii adeegga bulshada. burburka isaga ahi waxa uu keenay in uu abuurto damqasho cid kasta oo damiir lihi oo wax kari kartaa heer ay tahay waajib in gacan laga geystaa inay tahay mid aan laga maarmahayn maadaama shirkadda dahabshiil ay tahay hay'ad dhaqaale oo ganacsi oo ka dhex shaqeyso oo ka dhex adeegta meelaha burburkaasi saameeyay ee uu ka dhacay dadka burburkaasi raadka ku yeeshana ay ku dhex nooshahay oo ka dhex shaqeyso waxa ay go'aan ku gaadhay inta ay kartideedu tahay karaankeedu yahay inay amuuraha adeegyada bulshada ay wax ka qabato kuwaasna caawa jecelahay inaan bal si yaroo kooban kaga faa'iideysto jaaniskan iyadoo aanay ahayn wax shirkaddu ay ku tarsheeganayso ama ay ku faanayso hase yeeshee ay tahay baraarujin iyo isla socodsiin dadka kale ee ganacsiga leh ama hawlaha wada ku hawlan ay qudradna baraarug ugu noqoto inta kale inagana ay ugu noqoto wargelin. shirkaddu meelaha ay wax ka qabato waxaa ka mid ah tan su'aale soo qaato dhinaca caafimaadka oo kale waxa ay taakulaysaa oo ay gacan muuqata ka geysataa cusbitaalada hadday noqoto dhinaca dhismaha meelaha ay ka socdaan dhismayaasha cusbitaaladu hadday noqoto qalabaynta xafiisyada dhinaca daawooyinka gunaynta meelaha qaarkood shaqaalaha haddii ay noqoto dhinaca kale nadaafadda iyo hagaajinta adeega cusbitaalada waxaan tusaale u soo qaadan karaa cusbitaalada guud ee magaalada Hargeysa waa meelaha ay gunooyinka joogtada shirkadda dahabshiil ay siiso. waxaynu soo qaadan karaa cusbitaalada magaalada Muqdisho sida cusbitaalka Banaadir Kisale iyo Madiina. waxaynu soo qaadan karaa cusbitaalka dhallaanka iyo hooyada ee Adna Maternity Hospital ee magaalada Hargeysa. waxaynu soo qaadan karaa oo kale cusbitaalada ku yaala magaalada Laascaanood ee gobolka Sool qaybta carruurta iyo hooyada oo ay waar cusub shirkaddu qalabkiisa iyo horumarkiisa ay ka qayb qaadatay oo samaysay. waxaynu soo qaadan karaa bangiga lagu kaydiyo dhiigga oo markii dhaweyd uu halkan laga xusay Cabdullaahi ka xusay ee magaalada Boosaaso. waxaynu soo qaadan karaa oo kale cusbitaalada lagu xanaaneeyo dadka dhibirka qaba amaba cudurrada maskaxda ku dhaca ay haleeleen magaalooyinka Garowe iyo Burco. waxa kale oo ka mid ah cusbitaalada ay shirkaddu gacanta ka geysatay ay imika ka hawl gasho cusbitaalka magaalada Oodweyne oo ay geysay ambalaasyadan dadku marka ay xanuunsadaan lagu soo gaarsiiyo cusbitaalka guud ee magaalada Boorame ka magaalada Ceerigaabo ka Berbera ka magaalada Gaalgacyo iyo cusbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. waxaa jira oo cusbitaalada ay siisaa shirkaddu kaalmo joogto oo dhinaca qalabka iyo waxyaabaha ku saabsan iyo dhismahaba. waxaa kaloo ka mid ah docda kale ee muhiimka ah ee ay shirkaddu xoogga saarto kobcinta iyo horumarinta dhinaca waxbarashada. waynu ognahay ummaddu inta aqoonteedu tahay bay wax soo saarkeeduna lagu qiyaasi karaa inta ay aqoon leedahay. shirkaddu waxa ay
si muuqata uga qayb qaadataay oo gunooyin xilila ah oo joogta ah ay siisaayay jaamacadaha dhammaan ka howlgala gobollada kala duwan ee Soomaaliya hadday noqoto dhinaca koonfurta Puntland iyo Somaliland haddii aynu tusaalayaal soo qaadano waxaa ka mid ah jaamacadda Hargeysa jaamacadda Admis University Abaso College jaamacadda Gabilaa jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Xudun gobolka Sool jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso jaamacadda Garowe jaamacadda Muqdisho jaamacadda Burco dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim magaalada Burco jaamacadda Camuud ee magaalada Boorame oo ah jaamacadda ugu da'da weyn jaamacadaha maanta shaqeeya shirkaduna ay la bilowgeedii u qoondaysanayso gunooyin joogto ah xagga maamulka iyo xafiisyada ay wax ka qabato jaamacadda Berbera ee Marine Science lagu leeyahay jaamacadda Hiiraan magaalada Beledweyne oo ah jaamacadda ugu da'da yar jaamacadaha hadda shaqeeya dhawaanna shaqadeeda bilowday sanadkan ku jiro ee 2010 kuma koobna uu adeega shirkadu inta la oran jiray jamhuuriyaddii kala qubatay ee Soomaaliya oo imka koonfurta Puntland iyo Somaliland hase yeeshee waxa ay wax ka geysataa oo xagga waxbarashada kuleyda ka caawisa kililka shanaad ee Soomaalidu degto iyada oo gacan ka geysatay dugsiyada hoyga ardayda ee dhexe sare ee Gaashaamo iyo Banaane haddii aynu soo qaadano dhinaca isgaarsiinta oo aan uga gol leeyahay wadooyinka iyo buundooyinka bariijada iyo wixii lamid ah shirkada lafteedu ummadda imala oo waa meelaha burburka badan ee ku dhacay waxaa jira gobollo dhan oo buundooyin u dhexeeyeen oo buundooyinkii go'an ama bariijada iyo ama magaalooyinba oo dhismahoodii iyo dayactirkoodii shirkadu ay ka qayb qaadatay haddii aan soo qaato waxaa ka mid ah bariijada magaalooyinka Hargeysa iyo Burco waxaa ka mid ah wadada Isha Boorame Cabaaye iyo wadada idaacadda tagtay magaalada Hargeysa wadada isku xidhay Calowle iyo Baargaan Puntland waxaa ka mid ah dib u dhiska gegida diyaaradaha oo iyaba isgaarsiintii ka mid ah Garowe waxay shirkadu dayactir ku samaysay gegida diyaaradaha ee magaalada Bandarqaasi oo la yiraahdo Bandarqaasi waa magacii hore taariikhiga ah ee loo yaqaanay magaalada Boosaaso madaarka waxa la yiraahdaa Bandarqaasi waxa ay shirkadu qayb libaax ka qaadatay 1 kilomitir ah samaysay wadada isku xidha Dila iyo Boorame wadada martay magaalada Faras magaalada Boorame waxa ay soo qaadan karaayo kale qoontayn ay shirkadu markaasi wax ka bixisay oo fara badan oo kamid ah imika hadda burburkeeda aynu ka hadlaynay liiqliiqato ee magaalada Beledweyne oo hadda hawsheeda iyo ololaheedu socdo shirkaduna ay kamid tahay dadka arinta dhiirigelinaya dabada ka hor waxa kamid ah wadada magaalada Jowhar waxa jiro oo kale iyana oo dayactir shirkadu ay ku samaysay wadada isku xidha dekeda weyn ee magaalada Kismaayo iyo wadada magaalada Timaada buundada Sagaan ee Kismaayo iyo Kisuuma wadada Dhoobli iyo Afmadow oo shirkadu ay ka qayb qaadatay dib u hagaajinteedii docda kale ee shirkadu ay aad isugu hawshay isugu taxallujiso waxa kamid ah wax ka qabashada iyo taakulaynta iyo tabantaabinta markaasi marka ay dhacaan aafooyin dabiici ah sida daadad soo rogmada ubiyaal fataha cudurro dilaaca abaara qarxa amaba dhaca iyo colaado oogme amaba meelo la adkaynayo nabadda oo la geliyo amaba ay waxyaalo la arkay ku imanayso intuba shirkadu si joogto ah ayay u kacdaayo dhaqaalaheed cid ugu horeysa ee marka qayl dhaantu soo dhacdo ka jawaabtay ka farciisa waa kamid amaba way ugu horeysaa in oran karaa shirkadda Dakhshiil haday noqoto fatahaadihii wabiyada ee Hiiraan amaba labada wabiga Jubiya Shabeelle hadii ay noqoto toga herer ee magaalada Hargeysa iyo meelo badan oo kale hadii ay noqoto abaaraha iyo cudurrada faafa markay meel ka dhacaan daacuunka oo kale iyo wixii la mid ah dagaalada iyo colaadaha damintooda iyo isku soo dhaweynta dadka qayb ay ka qaadataa adkeynta nabadda
ayay lafteeda marka ay wax dhacaan gurmadka hore odayaasha iyo u ergeynta iyo waanwaanta iyo arrinta geedjoogga hore halka laga dhaqaaqaaye marka shidaalka iyo laga siiya gurmadku waa deganuglaanta warsa laga helaa lagu soo eertaa waa maxamed siciid iyo shirkadda oo ama ha bixiso ama ha laga sii qaado hadhow bixisay dabka ha lagu dimi amaba nabadda ha lagu sugo meel walba waxa aynu soo qaadan karaayo kale dhinaca horumarinta cayaaraha shirkadda qudheedu qayb bay ka qaadataa hadday noqoto garoomada la dhisayo hadday noqoto isu keenidda caruurta iyo waxyaabahay ku cayaaraan waxay kaloo shirkaddu qayb ka qaadataa runtii dadka waxbaa ka dhexeeya waxa ka dhexeeya waa la sheego waa af dhaqan suugaan iyo taariikh dirkaba way leeyihiin waxaana la yidhaahdaa soomaalidu waa xidid iyo xigaal iyo xumro isku yaal colaad kastoo dhacda kala geyn kastoo timaada dhibaato kastoo dhacda ama kililka shanaad ha joogaan ama Ethiopia ha joogaan iyo Kenya ama Djibouti ama dhulkii Soomaaliya la isku oran jiray marka kala daatay ha noqdo intuba waa dadka xididka iyo xigaalka iyo xumraha isku yaallo wax kastoo dhaca hadii meel dhibaato ka dhacdo meesha kale way saamaysaa marka arrimaha ay la soo qaxay dibadda la joogo runtii shirkadu dadka si ay u haystaan dhaqankoodii afkoodii suugaantoodii isku keenkoodii ahaanshahoodii inay haystaan wixii lagu xoojinayo way ka qayb qaadataa shirkadu oo midlan ingiriiska oo kale oo aan joogno oo ay ka mid tahay meelaha ugu xooga badan lahayn shirkadu 250 wakiil ku leedahay runtii meel kasta oo waxyaabaha lagu hayo waan joognaa xafladahaas baan ku soo koobayaa hawlaha samafalo iyagu laf dhabar shirkadu ay sanad kasta u qoondaysto lacag aan ka yarayn $1 milyan intaasaan ku soo gabagabayn lahaa caawa anigu wax kasta oo su'aala wax kasta oo tala wax kasta oo tusaale oo ku saabsan midaan hadday tahay dhaliilaan u leenahay oo ku saabsan hadday tahay talo iyo tusmo ku saabsan horumarka shirkadda iyo siday idinla muuqato si aad idinku jeceshihiin qoraal baa lagu soo gudbin karaa toos baan loogu iman karaa diyaar baan u nahay maskaxdayda quraynaan adeegsanay kuwiina faraha badan ka faa'iideysano oo aqoontii inta halkan uu jida maaha ama shakhsiyadeed waa kala haynaaye aad marba anaga wixii tala iyo tusaale aan la siiyo oo customer-ka iyaga iyo dadka aan u shaqeynaa nahagaano na tusaano aanu ka taamila qaadano runtii waanu soo dhaweynaynaa oo aad baan u jecelahay si toos iyo si dadban labadaba aad baan markale idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad ayuu mahadsan runtii walaalkeen maxamed baashiim kale waxaan ku soo dhaweynayaa محمد سعيد دعالة أيام سود وين دهفشيل فليتفضل وإذا كنا مركا وجه ددي سعودال كيس هذه لعيد ما يرب أيوه أنا وقش كين دونا أيه كلهم كان عاوم ما حدنا نسوي شيء فليتفضل. حنتكون سلامة يا سلامة إسلامك إلا يسكو سلامه ومحتنتي والدكو وحمر لبعض يدكو عليليا تدكينن halkan soo ajibay shaqooyinkoodii iyo danahoodii iyo dhaxantaas soo jiiray hoolkan isugu yimi sharafta leh muuqaalkayga laga yaabo qaarna inay halu yaqaanaayeen sidii ninkii odayga ahaa goortii dhawrto hadlaayay ina baaruud xige rag kale oo aan aqoonin waa laga yaabaa inay jiraan ama rag dhalinyaro oo aan magacaygu maqlay oo aan wajigayga arag dhammaantiin aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa oo si sharaf leh baa yaa idin qiimeynayaa waxaana odhan karaa intiinaasi oo imka Soomaali ka kooban oo isu calool xaadan oo halkan isugu timi haddii ay Soomaaliya joogi lahaayeen ama wax ka qaban lahaayeen arrintu halka Soomaaliya gaadhimay gaadhin waxaan u malaynayaa Soomaaliya dadkii miyirka qabay ee wanaagsanaa baa ka soo badbatay dad baa u batay ma oran karo dalkii waa lagu ma oranayo taa laakiin waxaan leedahay dadka dabadda jira ayaa isku xidhihi oo haddii xumaantu halkan ay ka abuurtaanna xaggaas u xumaantii tegaysa haddii halkan wanaag ka abuurtaanna wanaagii dalka uu ku faafaya marka waxaan idinku waaninayaa war walaalaya nabaddu way fiican tahay
soomaalnimadu way fiican tahay meel la kala tegi maayo haddii maanta la kala cadhoodo gobol ka cadhoodo meel alla meel u tegayaa ma jirto reerna marinayaana ma jiro oo dhulka laga waayay reer waliba waa nooyahay waa soo taagay waa isnaqaana war walaalaya walaan isnabadgelin oo si miyar qabta oo labadii isu cadhaysan si miyar qabta oo wada hadasho ayaan isu qaadanin gacan ka hadal intaasi waa waana guud bay iga tahay aanu cidna uma jiro shirkadda haddaan u bayro shirkaddu waa shirkad Soomaaliyeed waa shirkad gobol walba ah waa shirkad inta af Soomaali ku hadasha oo u shaqeysa waa shirkad aan cudursanayn waxaan uga jeedaa markaan leeyahay aan cudursanayn qabiil maaha qolo maaha siyaasad maaha gobol laygu tirin karaa ma jiro waayo gobol walba waan deganay gobol walba hanti baan ku leeyahay gobol walba xoolo iga yaal 18 gobol baa dalka Soomaaliya de markii dawladdu ku dambeysay 18 gobol buu ahaa qaar kale ciidan ka badan waa lagu sii daray intaaba hanti baa iga taala kii wax ka dhacaanba waa naxado wallahi marka meel masiiba ka dhacdo habeenka ma seexdo inta kii meesha ay jooga isla tolmarna ma dhintay mise waa nooliya illa meeshii aan wax ku ogaaba balaa ka dhacay marka haddii meel masiiba ka dhacdo meesha waxaan jecelahay warkeeda inaan helo waxaan ka abuuray shirkadda gudaheeda unuga masiibada oo meesha masiiba ka dhacdo iyagu soo jeedo meesha ilaaliya bal hadda waxay ku dambayso oo inta telefoonka aan dhigin oo xafiiskii iyo sidii ku dambeeyeen iyo halka uu joogo iyo halka uu ku sugan yahay iyo waxa la yeelayo subax markuu waagu bariyo yaanu shir isku nimaadna war barka warhamo qoladii masiibooyinka ka warka sheegi jiray markaas inta warka sheega meeshii dadku waa damay sidana noqotay waxana loo baahday ninka meesha joogana wixii uu soo markaa soo codsado yaado guddidaas ama halkaas been wax laga qabto waan u fasaxanahay waxa bixi oo dabkaasi u dameeyo way damba noogu jirin waa mid de kuma raaxaysanno masiibada dhacday oo de waan mar ku naxayna oo hantadeeda waa meesha taalo qofkan waxa gaaray waa de macmiilkaygu ahaa oo dad la meesha baan ku wada xirana saasaan u jeedaa malihin meel kasta gobol kasta waa taaganay malihin oo meel walba way iswada gaadhaan malihin oo de ilaahu dadka wax gaarsiiyo oo ogtana de roobka dayba de gobollo badan de abaar ka dhaca waa dhici karta gobollada qaar inaan de joogno marba halka aad joogtid ayaa laga yaabaa inay ay gobolkii kale ay gacantu kaaga dhacdo oo ay gacantu ay u badan tahay oo waan oran karaa gobollada qaar ay naga helin gobollada kale aan joogno inaan intii ay ka helaan ilaga aan ka helin taas waa wax qaraara xumaan nagama aha qofku markuu baahan yahay ee uu ku yimaado un baad wax siisaa laakiin markuu baahan yahay ka fog yahay dee kan ku dhow ayaa kaaga soo horeynaya dadkana waa wada baahan yahay marka horta taa intaas baan idin sheegayaa oo waxaan cadaynayaa ee ku celcelinayaa oo doonaya inaan ka dhaadhiciyo inaan gobol iyo degmo iyo meel xaydaan yaroo gooniya aanan ahayn dadka u siman intaasan doonaya inaan si wanaagsan waxaan kaloo u yar bayrayaa intii maxaan soo doonay yani Yurub markaan Yurub waxaan soo doonay waxaan si bal dadkeena ka dabatay oo Yurub taan tigi jiray London u baahay London ma ka noqon jiray London waxaan ogaaday inaan de gobolada kale aan deetay karo dabad maanta bay ugu horeyso London aan soo dhaafay inka soo xilli qabooba oo برد بورا أنا أرك وديارتي أصور راعي أي لما ساعدت بدك دول لها ولا ديرني وأنا قرب وايس ديار دلوا ديرني دوري مرة ديار ديرني وحلو أفوفا ده مرة تقولي ديرني وكعب وحاجة بقى مركي هو ده مرة اللي هذا هو قبله أوكي ما نروح أبوه أركان ده تاسر وحين نقطة وأرجنمو وحياه يمكن لكن ده كذا بقى ما يو
waxaan doonayaa soo noqdo mar walba aan idinkaba agteginba waxyaabo mucjisooyinka ka mid tahay idaaradu diirina anigu wax la diiriyaba ma hayno garooba ma haysano marka horta waxaase dadkii ka daba tag soo eeg shaqadii soo qiimeey wakiiladii iyo raggii aanu telefoonka ku wada hadli jirnay soo eeg baad siday ku qabtaa si dadka ugu shaqeeyaan macaamiishiinii marka taasunbay horta iga ahayd oo saasaan u imi aad iyo aad baan markaa aan ugu maqsuud u ahay sida dadka kuwa macaamiisha nooca iyo kuwa noo ahayn intaba raalli baan ka ahay dadka Soomaaliyeed ee halkan isugu yimi waxaan u jeedaa anigu ma sheegayo oo malihi waxaasan qabtay waxaasan sameeyay laakiin dadku indhiisu waa macallin oo way arki karaan wixii shirkadu qabatay taa iyada anaa waxba aanu ku fogaanayn ninkii Maxamed Baasha wax badan faahfaahiyay ma jeclaysanay anu Maxamed Baasha faahfaahinay ما تعرف تنو ديار حيسيس بيو كانت تابع جعلها وايو صدقات بان نروح نقولون ضد اسكتس وايو واحد بعد تدعي او واحد قبض وضع مساجد دل هو الشيخ يال كان كهلي يقول العلماء دي ديار بان هاي الله الله لكن waxaan u sheegaya waa qoladiinan culimadiina halkii joogay iyo dadkii taariikhda halkii joogay waa masaajidada Soomaaliya dawladii hayn jireen oo burbure dadka joogaana ay ku tukadaan lacag ma haystaan intii berga hore u baahan yahay way u baahan yihiin marka dadun baa gacanta ku haya dadkaas u baan ka mid nahay gaarta qolada aan isku shaqada nahay aan waa soo dhaweynaya walaalahayaga aan lacagta iyo suuqa isku haysano u tartanno waxaan leeyahay walaalayaal dadku inuu ku filan ayayna nimanka iska xumeeyeen waa qolada aan shaqada ku leeyahay ka hadlay dalku iyo dadku waa nagu filan bar baa naga haraya dalal kale oo kalena waa jiraan oo aynu isu gudbi karnaa aanu raali baan ka ahay cidii ila tartamaysa cidii shaqaysanaysa cidii kale ay suuqa soo galaysa waayo suuqan inteeda aan joogto iyo qaar kale oo iman doonaaba way imanayaan waan ogahay waan qarsanahay haalan ka ahay anigu ma doonayo inaan kaligay ku xumo waxaan rabaa in dadku ay wax wada cunaan markaas aan xiriyaan waayo bala xijaab kiisoo xogaa lacag helaaba baahi aniga leeyahay imanayay ayuu ku gudbay hadii dadku wada fakhriyaan waa garan karaysaa aniguna de fakriga Soomaaliya kamid noqonaya markaad waxaan hadalka ku soo ururinaya walaalayaal aad iyo aad baan idinka mahad celinaya sida wanaagsan ee sharafta ee ay shirka nooga soo qayb gasheen ee noogu timaadeen aad iyo aad baan idinka mahad celinaya shirkadu waa shirkadiini way idin soo dhaweynaysaa shirkadu waxay ka kooban tahay taqaaniin bangi imika cusub oo baan Djibouti ka furnay oo islaamka albaabada loo balaqay oo muddo 7 bilood ku dhow shaqeynayay shirkad telefoona oo iyaduna dhawaan aanu furnay oo iyaduna imika gobolada qaar inteedii badnimay wada gaadhin iyaduna xawaare ku socota haddii aad oran doontaan war wadaadku isagu ma kaliya wax mana dadna waxba sheer ma geliyo taa warta lacagtii sheerka aan waxba iguma baaqdaan oo dibanaga idin sheegno dadkii baan dib ugu celiyay qofkii lacag haystana diyaar baan qofkii de faa'iido buu doonaya ama sheer loo geliyo ama loogu shaqeeyo qofka faa'iido doon haduu yahay oo lacag haysto goonaan u faqaynaado waraaqaha waan seenaado waan ugu shaqeynaa maaha oo malihin annaga baa isku koobayne hadii bangiga tahay waa dariiqa banka markaa ka hadlay yaa loo maray dariiqa bank waa bangi islaamiya oo yaqaana oo dad aqoonteedii leh iyo cilmigii leh ayaa gacanta ku haya waa loogu shaqeynayaa garan marka taana diyaar baan u nahay intaana waa bashaarada ayaan idin sheegay
عادي أدبا من كم حد عليني عادي أدبا ومحتنتهين وما يسنع وقت دير بتشوفتين أو تلحي باتنادين مكان ما رتبنا دي بسيط جلسة حنتي وقبل بين حنتي وبين كسوجيا أنا وحقيقة ومحتنتهين عادي أدبا لسوق ويليا والسلام عليكم. عبد عثمان آدم ويسوى reer beledweyne oo cabdi cismaan adan waa siyaasi hore waana aqoon-yahan reer Soomaaliyeed halkan ayna la jooga marka kelmad ayuu soo jeedin doona maadaama aynu beledweyne jacayl iyo hawlo culus ku ogay imikana dee la joogo halkaas inoo yarayna iyo dhaqanba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد السلام وروا أسكن مالي ممكن وأسكن قبل وقت بدن والله عباري marka waxaan jeclahay oo meesha xogaa inaan ka dhawaajiyo laba arrimood wax badan mashaariic badan howl badan la sheegay laakiin laba arrimood oo aniga si gaar aan xogaa u ah inaan balcaaw xogaa ka sheego arrimaha dahabshiil ko madara gudoomiyaha dahabshiil waxaan kugu bishaaraynayaa jaamacadda beledweyne ee dhagax dhigeeda aad dhigtay oo dhulku bannaan aad dhigtay maanta waxaad dhigato ilaa 200 oo arday ilaa 22 macallin way dhul ugu tabarucay oo wax u dhaqaaqa la waayay oo xogaa la isleeyahay basee u suurtagelaysa xilliyadan jiro iyo jaamacad laga dhiso meesha xogaa la isku waxay ayuu gudoomiyaha la hadlay nin u jooga beledweyne wuxuu yiri war meesha iyo dhulka fakanna bal dhagaxa darbiga hala wareejiyo dhagaxii baa dhiirigeliyay markii darbiga deyrka la wareejiyay saan oo marba u dhigay muddo 2 sano xogaa 3 sano ku dhawaad jaamacaddu waa taagan tahay 200 arday way dhigataa 22 macallin oo ka shaqeeyaan waadna ku mahadsantahay waxaa kaloo maanta xogaa aad ii taabtay markaan is aragnay gudoomiyaha oo xogaa iyo arrimaha samafalka aad qabataan aad iyo war beledweyne maad ka timid ahaa war buundada waa inta maqdad buundada wax waan qabanay ama aan dheelahay shirkadaha kale ee ganacsi ama inuu ilaahay wax siiyo ina sida ay u damqanayaan dahabshiil inuu u damqado oo ummadda wax u qabtaan oo ku dhiirigelin lahaa marka gudoomiyaha waa mahadsantahay إلهينا حسنا كاس أنتي كلوا الشيء ده واحد كلوا ماشي أنا كم غلط مرة بدون واحد محسن تاعي إلى هالكاس كسي وضر وحتى أصدر ما كان لقى في ريو أرمها مقالها أنت صوب بقول وشغالة أيها كشغال سو إنكم أو كسو قلنا ماشي إنكم كسو قلنا شركة دهبشيل وحبير أنت سيركوليشن العيان يمكن تقدر غالية كذا سيركوليشن العيان وأنت سوريا تلقى جديسة how many إيه كقالك أنت صو دولار أما أنت صو يونت أنت سوق قويس سيركوليشن العقد أنت كقادر في كذا يا وحوينا مركز سوق ضوب أوش على هايسان الله يدي بركة ومدنا أنا تسنا حتى أقوى دار يسكن لنا نفسي ودنا يدي رجينا وأنا ما هسنتي أنا كنت دوّين بكا أنسيو شهر أفرح وإسنا كمدا أنتي وحنا عندنا دولية سنة أو سوماليا إما أنتنا وحوية أنتي دولية رقمات كان ما أنت تشوجا يدك resources كا واسمه كلمة قابل سوي شيء دونا فلتفضل شاهد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني علماء يو قدوميها دهبشيل يو وكيل كيسة دلنيرو صحافة كل واحد سلام تيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدرب وحرادين مدحوين وإحنا ترى آدي أمر هذه الجل ما دام عندها بشيل أنت أسوي شيء تمام دورنا مدحوينك كده ما دام أنت هدي أربعة سمينا أيام هدي سمينا أيام محيط إسبتال هذه هدي سمينا ميل والله هدي ما كان يقولنا محيط هدي وحرادين وإحنا ترى أو حدالكين وحتردالكين وحترى أو الصوماليين يسكون متهاي الصوماليين كنا ما كان يقولنا مدحوين مدحوين هاي التسرادين وحد باتن لو كانوا مدحوين waxaan leeyahay aniga hal kelma kaliya ayaan leeyahay aan ka codsana dahabshiil khayraad badan ayay qabatay khayraadka ay qabatay aad ayay u farabadantii waatan hortiin laga wada sheegayo muddo dheer ayay dalkoo dhan ku wada baahday min raas kamboni ilaa zaylac ay dhulkaas dhan ku wada baahsantahay wax weyn way qabatay aniga hal shay kaliya ayaan dhihi lahaa maadaama aan nahay odayaasha degan magaalada Norway oo caruurtoodii iyo dadkoodii ay u badan yihiin dalkii maadaama laga soo qaxay waxaan jeclahay masaajidka inaad gacan u geysataan masaajidka inaad gacan aad u geysataan laana caruurteeni
annakoo dhan meesha keliya oo noo furan wey oo aan annaga wax ku baranno caruurteenna ay wax ku bartaan oo gacan raadinaysa marka khayraad allah idin siiyo nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam man bana baytan lillahi bana allahu baytan fil janna marka adinkoo taas ka amba qaadaya oo horena aad sadaqad badan geysateen haddana waxaan codsanaynaa masaajidkaas inaad gacan weyn aad geysataan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayuu mahadsan yahay inaan kelmadda siiyo suldaan bashiir geelle oo isna kelmad halkan nooga soo jeedin doona isaga magaalo ku magacaabi maayo markaa isagu wuxuu yidhi waxaan ahay soomaaliya oo dhan marka waa suldaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذروا البيع ذلكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وأنت تشمعنا وما أنت أهيد وأحسيد الأيام iyo gudoomiyaheena dahabshiil kulankooda ayay ku saabsan tahay arrinteeda waxa weeye maalinta jimcada waxaa la yidhi bacd mushtarigiina joojiya kadibna u dareera masaajidka oo salaada tukada culimadii way joogtaa markii aad ebidaan salaadana dhulka ku kala faafoo shaqaysta wabtaquu min fadlillaahi wadakuru llaha kathiiran ilaahayna xus tijaaradiinniina dib ugu noqdo waxa weeye gudoomiyahana waxaan leeyahay maalin fiican baad noo timid maalin jimca weeyaan runtii gudoomiyuhu wuxuu sheegay waxyaabo fara badan anu waxaan u malaynayaa axmed baad waa joogaa raggii ugu horreeyey wax ka xawishay baan akoonna waa ku lahaa waana ninna waa hal nin oo aan qaraabo nahayna nairobi waa ii shaqaaleysiiyey hadda ka horna waa sheegay taasna aad baan garaayd xagga masaajidka haddii aan u kaco مساجدك إلهي وحكي القرآن كيسا أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى ورحمة للعالمين قولي وري أدومد إلهي سيئي ومكة للناس للمسلم قال كويس كدي ذا ولا قربا سيدا الشهادة الله قربا أي الله قربا إنه مكة هدالنا يقول رميو صوبتها وحوي وأركان الإسلام أركان الإسلام 5 وي mid ka mida weeye maka oo masjid walibana wuxuu naayib ka yahay maka halkan iyada lafteedu dib u heshiisiin bay u baahan tahay hawlaan ku jirnaa inaanu dadka isagoo isku dhow haddana isku sii dhaweyno haddaad maayada lafteedana daabshiil loogu soo ducay haddaad muxuu ka qayb qaadan kartana axmed cawadba waa kuu joogaa waa dhow yahay ha intaasaan kaga baxay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sacad yuusuf xaashi dhinaca isboortiga kooxda kubadda cagta ee dahabshiil oo runtii sanad walba halkan lagu qabto koobka dahabshiil waa isna kelmadii dhalinyarada soo jeedin doona xaflay tafadal sacad يلا بس نقدر على بسم الله السلام عليكم دمانتين مركب روح السلام يا محمد سعيد مركب حلتنا تتكلم شغل دمانتين مرعي سعد بللا وحنا نقول مثل يا دانيال سبورتيا مركب ورا دنا دانيال سبورتيا واللي بيكو حدي تحبشين لوي سودو كلنا هاي مركب حلتنا واحد دوري أنا نيرو information كاسيو دانيال سبورتيا نوري واللي بيكو حد تحبشين وحنا هاي سووا مركانو بحينا سمرك رجالو وحنا كحولة وحنا تجنا أنا وكبيرنا مقعد أبشر من تجنا الدنيا دافعية ذا والوقت أنت قلبتك قالك كان تجنا حكم إذا كندا حكم إذا اسكندنافيا كودن هولند فنلند إنجليز كا ملك الصومالي شركة كابلو قبطان تجنا ملك السلام مقعد شركة مجني شركتنا أحمد عيد بكم الخاتيو وعيد كتير سومالي كشقة ستا نرويج قرنا وصلا مرة بدر نسيسا نجع وصل حاجة تجدها قيم وفيجا وإحنا جب فيجا هو تلاقي قيم نجا بحساب مركز سلام تسن بكرة اللي كاجي سدا تسوقه مركي أنا نو كوحدة كوبيدة سومالي أنا قلتها حاجة ما كوكرة سومالي كسيف عن صدق كان شو ما قرنا لكن أنتي وده قالوا ما أنتن كقرنا
markan kooxda dhalinyarada soo galay anigu ugu yaraa iminkan aniga ugu weyn marka waxa weeyaan oo kale ciidana ma caawisa anagaas caawina anaga shaqaysana wixii dadka kala Soomaalida wax noogu darayaana saasaan ku dhoofna sanad walba marka waxaan ku soo celinayaa dahabshiil marka soo ciida kaliya caawimadeeda aanan weydiinba markan uu ayaantan diyaar ka noqon Axmed Cawad telefoon u diraa waa diyaar marka alxamdulillah aad inta ku mahadsantiin waxaan doonayay in oo kale dhalinyarada hay'ad baan kaga soo qaaday ku soo kamida oo dahabshiil baa ku qoran waana qurux badan yahay ciyaartooyga lambarnaanka naga dhaawacmay xudeen adigu aan doon bedesho dad كوريا دنيا دي الدولار كاجا بده حبشيل دغو عبد الكريم محمد شردون أنا يربح الكلمة هالك وحكو برتبان هاي حتى أنا وحنا نوجو كشخيني يا ما نكوش كل سنة سيدي حوالي لها وكحرن هاي وقد كان إنه شيء متقنع أو كرسين لهاي وشركاتها عن تهفشيل وكلا عن لقمة إنه متقنع وإحنا سيد ودك كما وقت الشركة قالوا وقت كي يقولوا وانو سوتشستين مركز لو فوزين لها وأنا سيمينار مالتي لو تقبتي حتى الشركات أنت نكلا أو شركات حواليها وكل عن مشارين يعني يفرضون يعني كاو نفس الشركة متقنع الشركة كلام هيدا ودك الشركة متقنع والراعي لهيدا وخلطات كسائل على الهيدا ومدوب الهيدا ترتوى لكن حتى أنا وحياة وهلقى من وأدقوا من هذا الهيدا تاس أديار من مركا أنو ديار بالله شركتنا أنو ديار بانو لا هاي وحي كرانكي قاول ديار بان هاي وقرح سلمة هي كانوا حنورنا يا تندح بشيل حنورنا يا لو يعني ما ورنا يا واحد مخانتك ولا هاي قلت إلهي يقفك وهدو حكيستو إلهي بعد شركة سيني لا هي أنتو شركة يعني متقنة إذا وهذه الدولة متركاه إلهي متقنة شركتنا متقنة بلايد هو حجابه وذلك الشركة أساسا وخيرك كشغيين وقالين إن الشركة خيريات كشغي سنة إلهي سلم تبداف وقدقه عمل ونفس متقنة إلهي هو بدله إلهي أجري حسنات عذابت إلهي وحريه عمري سينا إلهي كل يوم يبالله قولنا حفلة سوكا يرتمال بتا وحان قرية انت هذا يارو تهبشيل وحان ملين قلبي قدتك واهنت وحان ملين قلبي واهنت تدكنا واحد وباهيها كنت يران أنا رأيت كنت لاب أنا هاس بقى من نوع قالوا حيل كنت يوم كنت لاب مجلس أنا وحلا شركة حوالي كنت يوم تهبشيل بالله أنا وحن كلمة السين دوراي كان عبد الرشيد عن شرار marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha Maxamed Saciid maamulka Dahabshiil Norway shaqaalaha dhamaantood meel kasta joogaan iyo mar labaad marti sharafta ka soo qayb gashay iyo qabanqaabihii xafladan Mr. Bashe kulay dad badan baa fadhiyo waxa hadal badan iyo wuxuu lahaa kulay maadaama uu Bashe yahay kaliintan inta ilaahdo ayaan soo kacay mid baan ku darsanayaa Dahabshiil waxaan ognahay from Sayda marka laga bilaabo ilaa Kismaayo dadka ka yimiday meel kasta oo ay joogaan maanta haddii ay rabaan inay $100 bangiga geeyaan u dirtaan family-goodii may jiri lahayn ama ma jirteen cid u gaarsiisaa laakiin maanta wanaagno hadda dhiibto Axmed Cawad fadhiyaan inagoo halkan fadhino qofkii aad u dirtay lacagta haystaa taana waxay noo suurtageliyay gudoomiyihii Maxamed Saciid oo nala jooga aad baan ugu mahadnaqaynaa arrintaas marka waxaan taana dib loo dhiirigeliyaa ninkii wax haysto xagga daba dhigin gudoomiyihii uu dusay bangi baa Djibouti laga furay islaam kulli anigu waxaan taa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan noqon doono ka qaybgalayaasha maadaama xagga Djibouti u badanahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول هذا مقع مسجد التوفيق نروي ورنتنا ملاك أبو بدن مملكة أبو بدن لا أيام واحد لا محمد كسودو مقع أصلا نروي إلى هنا محكبر يعني ميزان حسنات كل حاجة حسنات جيستي وكوكو درب مرة بدنا سودو محمد الله كسودو نروي الله أنا أقول بركة وبدكي حوالها بعدنا
halkan hadal badan dee wax soo laxtada anaa hore ma maxaa bale hadalkii waa la dhameeyay hadal igama furan halkan waxaan doonayaa inaan magaca anuu ku hadlayo maskiida soo dhaweeyo maxamed siciid ducaale oo aanan ka daamantiina soo koobi karin in laga sheekeeyo markaan u baahnayn marka ma waxaan leeyahay maxamed soo dhawow anuu ku hadlayo magaca dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka Norway dhamaantood galbeedka Yurub inaan ka yara duwanahay oo ku faano runtii hadday noqon lahayd wax qabad iyo hadday noqon lahayd iska warqab labadaba waxaan si gaar ah gudoomiye u ammaanayaa oo maanta halka soo istaago laba kelmadood oo la yiri Axmed Cawd oo runtii aan hubno inuu dhammaanteen yahay madaalaheena wax walba oo markaa la weydiisto hadday ahaan lahayd dhalinyarada iyo hadday ahaan lahayd bulshada kale ee Soomaaliyeed iyo hadday ahaan lahayd waliba hadday xataa ahaatay laba qof oo markaa doonaya inay guri galaan meel walba ay joogo soo booqdo yani ubad hadday dhalayaan iyo hadday maaragtay guri galayaan raalli ahaada haddana Soomaaliga qaday aniga si gaara iyo si dadban ayaan uga tirsanahay dahabshiil waxaana Norway u qaabilsanahay qaybta xayeysiinta waan mar walba ku faraxsanahay anigoonan cidna ii dirin markaan arkay sida dahabshiil u dadaalayso inaan ka qayb qaato kana mid noqdo waxaan tusaale kaaga soo qaadayaa walaalkay wuxuu hayaa xawaalad hooyaday waxay tiraahdaa hooyo dahabshiil iigu dir aniga iyadoo isaga oo walaalkay uu hayo xawaalad kale ayay hooyaday tiraahdaa maya anigu dahabshiil baan bilaabaye dahabshiil iigu dir inta kale laakiin xawaaladdaa ku tirsadaan dad macnaheed waxa kuu cadaynaysaa qiimaha ay dahabshiil u leedahay hooyaday maadaama uu ahayd markii ugu horreysay ay bilowday muddo 13 sanadooda ayna maalinna ka tegin iyadoo inankeeduna uu hayo xawaalad kale taa waxa ku cad sharafta iyo qiimaha ay u leedahay dahabshiil haddaan kugu soo celiyay mar kale mar labaad dhammaantiin waad mahadsantihiin naga soo qaybgalaasha anoo markaa tiirsanaya dhinaca dahabshiil ka tirsan reer dahabshiilna ah waanad mahadsantihiin dhammaantiinba Axmed Cawdna mar walba waxaan jecelnahay si gaara iyo si guudba inaad u eegto oo ka baxay waxaan ka codsanayaa Xaaji Yusuf Cali Shiine inuu halkan yimaado iyaguna inoo qaadaya in calanka Golis News dhammaantiin aad baa mahadsantahay ka soo qayb gashaan